horta marka koowaad xisbiga annaga xubnaankana aniga hadda xubinaan ka ahay marka waxaan rabaa adinka iyo aniga hadda xisbiga isku meelaan ka joognaa xildhibaan inaan ahay oona kelmadda la ii siiyey xubinaan ahay xisbiga madax lagama wada noqon karo madaxdii waxaan u dooranay akhyaar wiilal iyo gabdhaba leh iyo odayaal iyo dhalinyaro intaba waxaana ugu dooranay sideedaba madaxda in lala shaqeeyo rabtaa haddii laakiin aan madax wada noqono waddan wada madaxa meeluu ka jira lama arko waddankaana meelahu dabka ka rabay ka mid tahay ogaa in laga daaweeyo oo u baahan yahay waxay tahay qof walba wuxuu aaminsan yahay marka waxaan rabay maanta maadaama xisbiga soo gelaysaan xisbiga sidaas uu sheegay Cariif iyo Bashiir bay ka dhawaajiyeen dad aad u badan soo dalbado soo gelaya waxaa la sameyn doonaa unugyo kala duwan unugta dhalinyarada haweenka aqoon-yahanka dadba meel yeelan doonaan qolaba meeshay yeeshaan doorashay ku sameysanaay gudoomiyaha ninkii loo doorto marka dhalinyarada ninkaas anaga noo hogaaminaya hadii 2 sano la siiyo hadii 4 sano la siiyana waa in lala shaqeeyo gabdhaha gabadhii loo doorto waa in lala shaqeeyo taas waa qodob marka oo xubinimada ku saabsan xubinimadu maalin iskama korto maanta inta timaado hore marto waa dhici kartaa hadaad abaabulka iyo shaqada iyo ku wanaagsan tahay oo adiga hore is soo dhigtana horaad maraysaa hadaa adiga abaabulka iyo aad ku wanaagsanayna hadee qof hore ku soo qaadaysa ma jiro xisbiga horta taas weey number 1 number 2 muxuu yahay marka nolosha xisbiga xogaa waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay madaxooda ka guulayso xisbiga waa nolosha ugu muhiimsan siyaasadda dal walba adduunka uga jira dhaqan anaga noo gooniya ma siyaasadda looga qayb qaata aragtidaada siyaasadeed kaliya ma cabiri kartid hadda ra'yi kaleeda Soomaaliya waxa ka jira oo xaafadiina aad degan tahay aad ka timaado Shibis ama Buluxubey ama Tawfiiq meesha degan tahay ka imaaw aan ra'yi qabtido israad walaa waxaan in la yiraahdo way si aad ku gaarsiiso madaxda ama dalka dadka ka taliya sida ugu fudud waa inaad xisbi ka tirsanta marka xisbi ka tirsan tahay hoggaan aad leedahay hoggaankaaga u imaanaysa hadda xildhibaan way wax aad rabtaan oo dibsateen oo baarlamaanka la rabo in la geeyo haday jiraan wixii maanta ka dambe meela keentaan aad leedihiin hoggaan aad leedihiin dhalinyaro hoggaankiina dhalinyaro u soo qoraysaan waxa leedihiin annaga waxaas oo dawladda Soomaaliya ay sameysay ama dalkeena lagu sameeyay raali kama niin waxaan rabnaa inaad naga qaado oo tala naga geyso marar badan oo kamid ah waxaa maqashaan mooshin ma doonayna adigoo lana waa arag marar badan mooshinka horta waa talo kelmadda waa la af Ingiriisi wax badan oo wadanka Soomaaliya waxa jira dadka ay jecel yihiin laakiin af Ingiriiska ay ku neceb yihiin Soomaalida aad ay talo u jeceshaa maanta dhan hadaa tagto oo dhulkaas aad dadka qabaa'ilka marka heshiisiinayna madaxweynaha uu noo diroon dawlad goboleedyada dhisaynay dadka maanta waaga subaxii soo bilowday ilaa caaw inaa fadhisaa laga yaabaa midba maxay la tahay waxa laga yaabaa 9 qofood shirkaas inay ku jirto qof walba inuu hadlo rabaa waa talo marka iyo soo jeedin horta taladay soo jeedinta waa jeceshiin laakiin markii magaca gaalo loo yeelo leeyahay waa mooshin hadaa maqashiin marka calooshaayda xanuuna macnaheedu waxa way hadda waxaad dhibsateen magaalada ka jira example aan rabaa midalan inaan dhahno waxba dhibsateen magaalada ku jira waxaan la ka dhaafaa rabtiin inaad tiraadin waxaan noo imaanaysiin aniga iyo xildhibaanka waxa leedihiin soo jeedin u gudbiya baarlamaanka waxaas in la ka dhaafaan rabnaa waxaas markii baarlamaanka la geeyay magacay leeyihiin marka xeer uu leeyahay baarlamaanku magaciis marka waxaas mooshin la marka hadda kadib mooshin maqashin ha iska xanaaqinina waa laga yaabaa mooshinda dhibsateen inuu jiro mararka qaar oo istiraadeen wallahi midkan maxaa loo keenay laakiin mooshintu waa soo jeedintuna waxay ku saabsan tahay hadda example aan dadka siiya aniga qodob labaadan rabaa inaan u gudbo oo ah marar badan waxa maqashaan hadda ninkii Bashiir soo sheegay mucaaradku waa qaran dumis mucaaradku waa sidaas mucaaradka example aan idin siinaya maalin dhaweed waa ka waraysan qalbi dhagax nin leeyahay la dhiibay dawladeena soo qabatay Ethiopia u dhiibtay in laga hadlo ma rabteen mas in laga hadlina rabteen in laga hadlo macnaheedu marka waxay tahay hadaa ka hadasho mucaarada ku tahay dawladda marka ha hadlin miya marka waa ina ogaana marka mucaaradku sidiisaba dhinaca miraayada ka taagan yahay miraayada dhinaceeda kalena dawladda ka taagan xukunka dad markaas fadhiya labadooduna waxay qayb ka yihiin dawladnimada dadka Soomaaliyeed waxay isku qaldaan wax la yiraahdo nidaam iyo dawlad waxa dalka ka taliya oo farmaajo iyo Xasan Khayre madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ah nidaam la yiraahdo nidaamkaas waa isbedelaa shalay anaga joognay maanta ayaga jooga bariina kuwa kala imaanay laakiin waxa aan isbedelin oo kulligan aan xubin kana maxay yihiin dawladnimada marka qof inuu asaga dawladnimada iska dhigo yiraahdo aniga dawladnimada waa laga fiican yahay u fiirsada macnaheedu marka maxay tahay xisbigan UPD la yiraahdo waxa laga yaabaa marka laabataan caaw dad badan aragtaan tiraadaan xisbi mucaarada ku biirteen in la yiraahdo laga yaabaa marka waa ina idin sheegaa mucaaradka shaqadiisu maxay tahay
mucaaradka shaqadiisu waxay tahay waxa khaldan inuu toosiyo haddii marka aan lagu toosin adiga hadda waa soo kortay waa weynaatay iskoola aaday intaas hooyo aabaa kula shaqeynayso waa lagu daba socday haddaan lagu daba socon lahayn dad badan oo la daba socon Soomaalidu waxay ku maamaadaa gaalo waa ilmo la daayay tiraahdaa Sooma gaalo waa ilmo la daayay wal idbi way procedure kala bari way wixii la bari waraa salaad duko waraa saanyeen dawladda hadii saas la yeelo ilmo la daayay noqonaysa meesha rabtay ka baxaysa waa marka subax walba wixii khaldan la sheega oo la yiraahdaa waraa dadka jidadka laga furo waraa wixii kana laga furo normalina shalayna waa jirtay barina waa jiraysaa dabeecadda basharka ka mid tahay bani aadamka dabeecadiisa ka mid tahay wax anaga nagu gooniya maaha Soomaaliya adduunka dhanayna ka jirta ahzaab xukun haysa iyo ahzaabaan xukunka hayna balance yaa la rabaa waxa la rabaa nimanka oo xukunka jooga inaysan sensitive ka ahaanin dadka xukunka mucaaradka ku ah oo ay dhageystaan warkooda wixii warkooda asalka ah ay ka qaataan wixii kalena hadda wayba waxba ma dhibayaan wax culaysa ma keenayaan marka ayadana qodob labaad oo aan rabay inaan idinku baraarujiyay eedo hadhow markii la idin weydiyo la yiraahdo waraa xisbiga ku biirteen waa xisbi mucaarad oo sayid ku noqonin wax kadis intaas waxa marka aan rabaa inaan ku soo gunaado maadaama ahwaga la hadlay dhalinyaradu waxa marar badan laga dhawaajiyaa inay tahay tiirka nolosha oo de ayagu ay yahay bari waxna waa shalay waxna waa maanta waxna waa bari mustaqbalka marar badan oo kamid ah waxa laga yaabaa in adiga u aragto wadankan Soomaaliya hadda culaysya ka jira waa run laakiin culeysyada ka jira sidoo uga bixi karo kaliya waa adinka shaqada hadda haysan dad badan oo kamid ah waxa laga yaabaa shalay inaadna fiirinayn anaga madaxweyne Xasan Sheekh iyo raggaan hadda fiqi iyo kulli Ciise Guure iyo anaga dadkii wadankan joogaan ahayn waxaan goobjoog u ahayn ayadoo wadankan oo iskool lahayn oo iskoolada dib loo soo sameeyay madaxweynaha saa iiga sheekay aniga shakhsiyan 29 ayadoo hal subaxii hal qof oo iskool aaday aan la arkin dabcan iskoolada waa jiri jireen waa la burburiyay iskooladii waa la kala qaatay jilagii nina qaatay sabuuradii nina qaatay dhuxula laga dhigtay jiingadii midaa qaatay guriga ku ag dhistaba waxaan sameynay iskoolka intaan fujisanay darbigiisii aan darbiga ku ag dhisanay xagga aan waab ka dhisanay wixii dhaxaysay ahaayeen dadkii madaxweynuhu wuxuu ii sheegay markii subax kamid ah waxaan ku soo baraarugo inaan wax iskoolaba wadanka qof iskool aadeeba la arag Muqdisho Primary and Secondary Schoolkiisa hadda wuxuu ku yaalaa Shibis waa la arki karaa iskoolku bilaabo waqtigaas dadkii ka soo baxana waaba joogaan Ariif ayir ana ka soo bax marka waxaan ku keenan ka wadaa kadib marka duruufo adag la soo maray oo aad u adag waxaan xasuustaa ayadoo magaaladu ay kala xiran tahay oo dhinacna sawaariikh la dhacayo iyo madaafiic dhinacna dawladda ay joogto dhinac shabaab oo joogo dhinac Ethiopian oo joogo dhinac kan oo joogo intaas oo ay tahay duruuftaas ay tahay dhan waa lagu noolay maanta hadda magaalo waxa joogtaan duruufo oo qof bisoolad lagu dilay qof qarax lagu dilay iska jiraan laakiin magaalo waxa joogtaan guryaheedu dhismayaan jaamacadeedu dhismayaan iskooladeedu dhismayaan bangiyadeedu dhismayaan telecommunicationkeedu dhismayo oo qof walba oo kamid ah nolosha oo mustaqbalka leh iskama imaanin inay inta iska imaato wallahi 1 2 3 iska noqoto ma waxay ku timid juhdi aad u badan oo dawladnimada oo la isku soo wareejiyo waliba hal mar iyo laba mar aan ahayn juhdigaas tirada badan leh waa la qurxin karaa laakiin zero ma ahayn marnaba waxaan rabaa inaan leedika aan loo sheegin dadka wallahi waxba lama qaban haddaan waxba la qabanin miya meeshaan fadhin lahayn haddaan waxba la qabanin miya ahzaab ka hadli lahayn qaanuunka ahzaabta waa la ansixiyay waxa la ansixiyay 2016 haddaan qaanuunka ahzaabta la soo ansixin lahayn xisbi lama dhiseen haddaan xisbi la dhisin nolosha siyaasadeed si aan qabiil ahayn oo looga qayb kala ma lahan marka waxa la idinka rabaa in aad u fakartaan inay berri mar walba ay fursadu jirto fursadii shalay jirtay iyo tan maanta jirtay iyo tan berri jirtana mar walba tan berri jirta badan fursado waaweyn aad haysataan dadkiinaan hadda waqtigan ku soo aaday oo ama tacliintooda hadda wata ama tacliintii hadda ka soo baxay fursado aad u waaweyn aad haysataan aad iyo aad mahadsantiin gudoomiyaha iyo waa u mahad celinayaa xubnaha kale waxaan rabaa inaan idin sheego dadku waxay ku kala aruuri doonaan ahzaab Somaliland waa aragteen saddex xisbiyo waaweyn ka jirta shaqo la yaqaanay qabteen muddo ay soo shaqeynayeen khibrad ay leeyihiin dadku ahzaab ku kala aruuri doon xisbiga aan rabto siyaasadka uu ku shaqeeyo inaan akhrisaa laga rabaa muxuu deganaanshaha dalka ka aaminsan yahay xiriirka arrimaha dibadda muxuu ka aaminsan yahay federalismka muxuu ka aaminsan yahay diinta iyo dawladnimada xiriirka leedahay muxuu ka aaminsan yahay dhaqaalaha dalka muxuu ka aaminsan yahay dhalinyarada muxuu ka aaminsan yahay tacliinta muxuu ka aaminsan yahay muxuu ka soo qabtay waxa soo dhan muxuu record oo leeyahay xisbigaas qofka ku soo hor istaaga xataa inuu record leeyahay
laakiin hadda wallaahi rikoor la'aan qof haddaa intaa adigu doorto tiraado wallaahi rikoorba ma lehe laakiin qofkaana iska jeclaaday alla caashaqayay waaya wax haddana haystayna u badan yihiinba marka hadday caashaqayay kaa noqoto hadhow berri kama meel gaari kartid laakiin inaad rikoorka diraasaysiin axsaabta iska fiirisaan hadda u b d aad doorateen dabcan soomaalidu reer guuraana waa isaga badan tahay oo waxay jeceshahay meeshii xoogaay sabarkeeda yar soomaaliya meelaha ay u baahan tahay in laga tarin gareyn waxaa ka mid ah inay sabarto dadku ay sabarka bartaan adkaysiga bartaan isu sugidda bartaan safka waa dhibaa qofka soomaaliga haddii la yidhaha hadda meeshaas laga soo gelayo baaritaanka saf waaye xoogaha sug inuu iska tago shortcut oo helo jeceliyo meel kale ka soo galo oo jeceli aad iyo aad u mahadsantihiin dhalinyaradiina waana ku faraxsannahay tiimka ka shaqaynaana waxaan codsanaynaa mararka dee tababarka la furi doono xisbiga in nala ka waco markaasaa waqtigeenu ku fiican yahay aad u mahadsantihiin